السلام عليكم صاحب عيال سو dhawaada maanta muuqaalkeena cusub maanta muuqaalkeena waxyaabo badan oo ku doona dad badan caalamka ku nool oo lacag leh ayaa waxa jira in wax yaabo maalayacniya amba aad la yaabto adiga ku bixiyaan lacag badan hadaba waxyaabahaas in eegi doona iyo qiimahooda shayga ugu horeeya waxa weeye keega ugu qaalisan dunida waxaad ku ogtahay keega ugu qaalisan dunida amba keega lagu dhigto aroosyada xafladaha waxa weeyaan keega ugu qaalisan dunida qiimihiisu waxa uu fadhiyaa 75 milyan oo dollar waa lacag qayb macquul ah hadaba intii amba waqti lagu sameeyay waxay ahayd 1100 saacadood oo u dhiganta 45 cisho sida ayaanu ku noqday keegii ugu qaalisan dunida waxaa lagu sameeyay Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Dubai maalin kasta waxaan isticmaalnaa saacada mid aan ku xidhano gacanta ama mid aan ku xidhano guryaha aan dhigano hadaba sanadkan 2022 ka waxa la soo saaray saacadii ugu qaalisan dunida saacadaas oo lagu qiyaaso qiimaheeda 25 milyan oo dollar magaceeduna waxa la yiraahdaa Showbird amba Showba 201 hadaba saacadan ayaa noqotay saacada ugu qaalisan dunida sanadkan 2022 ka hadaba oo saacada xiran tahay qiimaheedu waa imisa ani saacadan xiranahay 20 dollar ma dhaafto hadaba dhawaan waxa la soo saaray miisaan cusub miisaankaas oo miisaankaaga la barbar dhigaya amba ku qiyaasaya xayawaanka isku miisaantiin sida maroodiga shabeelka harimacadka laga yaabaa inaad xayawaan isku miisaantiin hadaba dad badan ayaa laga yaabaa inay maroodiga amba shabeelka xayawaanadaas kale ay la miisaan noqdaan waxaan dhici karta dad badan inay shimbirta la miisaan noqdaan hadaba marka saas ku fiiriso maxaad u malaynaysaa xayawaankee ayaa isku miisaantiin shirkad Faransiis ah oo caan ku ah sameynta dharka iyo kabaha loo yaqaan Balenciaga ayaa sanadkan bishan May waxay soo saartay modelkii ugu dambeeyay kabihii la isticmaalo hadaba markaad kabaha fiiriso waxaad malaynaysaa kaba daalan oo in badan soo isticmaalay amba kaba laga soo saaray qashinka ama gudaafada hadaba kabahan qiimahooda imsaad malaynaysaa kabahan qiimahoodu waxa u dhaxeeya 625 dollar ilaa 1700 dollar hadaba adigu kabahan ma iibsan lahayd hadaba maxaad ku ogtahay kabaha ugu qaalisan dunida magacoodu waa Moonstar Shoes kabahan qiimahoodu waa 20 milyan ilaa 25 milyan waxaanay saa ku noqdeen kabaha ugu qaalisan dunida sanadkan 2022 ka hadaba maxaad ku ogtahay muraayada amba ookiyaalaha aan maalin kasta xirano ee dunida ugu qaalisan sanadkan waxa la soo saaray muraayada amba ookiyaalaha dunida ugu qaalisan ookiyaalahan ama muraayadan magaceedu waa Showbird Tarigo Fish qiimaheeduna waa 400,000 oo dollar sidaas ayaa sanadkan ku noqotay muraayada amba ookiyaalaha ugu qaalisan dunida arinta kale xiiso leh waxa weeye nin 30 sano ku dhumanay keymaha kaas oo u maleynayay inuu dhamaaday dagaalkii labada dunida ninkan oo u dhashay dalka Japan ayaa u haystay wali inuu socdo dagaalkii labada dunida kaas oo martaba ka soo baxay keymo ku yaal dalka Japan waxaan ugu maleynayay wali inay socdaan dagaalkii labada dunida hadaba ma ogtahay in dib qalooca amba hangaraaraca la sito oo loo shito siyaarka oo kale marka uu dhinto hadaba dadka qaar ayaa waxa sameeyaan marka uu dhinto dib qalooca noociisa madow waliba ay shitaan oo ay ka uriyaan qaab balwad ahaan oo kala hadaba dadkan oo ku nool dalka Pakistan ayaa waxa sameeyaan marka uu dib qalooc dhinto waliba noociisa madow way shitaan sigaarka ayaa u shitaan kadibna way cabaan taas oo marka dambe ku qasbasay inay la qabsadaan arintan ayaa lagu arkay magaalada Peshawar ee dalka Pakistan hadaba sunta dib qalooca iyo maska nooca kubraha loo yaqaan ayaa noqday sunta ugu qaalisan dunida ee la kala iibsado hadaba sunta dib qalooca amba hangaraaraca ayaa noqotay sunta ugu qaalisan dunida iyadoo 1 litir ee sunta dib qalooca la kala siista caalamka wax ka badan 10 milyan oo dollar halka sunta maska waliba nooca loo yaqaan kubraha la kala siisto lacag dhan 40,000 oo dollar hadaba suntan dib qalooca ayaa la sheegay in ay daawo u tahay cudurro badan sida macaanka dhiigkarka iyo cagaarshowga amba jaundice-ka saas ayaa ku noqotay sunta dunida ugu qaalisan ninku nool dalka Thailand ayaan cunin wax cunta hadaba waxa kaliya cunaa waa dib qalooca amba hangaraaraca taas oo ka dhigtay qof adag
markii la wareystay waxa uu ku jawaabay waxaan ahay qof cimilada iyo wax walba adkaysta taasna waxa sabab u ah uu yiri dib u qaloocan maalin kasta cuno waxa la weydiiyay wali cunto kala ma cuntay may ayuu yiri waxa uu kaliya aan quutaa aan cunaa waxa weeye dib u qalooca noociisa madow ay ku nool kaymaha iyo meelaha qoyan ma aamini kartaa in qof dumar ah bishii ku noolaan karto lacag dhan $7 oo kaliya walibana qof dhalinyaro oo shaqaysta oo bishii qaata $1,500 oo wax ka badan hadaba sidan waxa suuragal ka dhigtay gabadh ururisay lacag si ay u iibsato guri ay ku noolaato hadaba muddo 4 sano wax ka badan ayay u lugeysay goobteeda shaqada si ay u baajiso lacagta safarka ama lacagta ay ku raacday baska intaana waxay cabisay biyaha tumbada guriga ugu jirta ee bilaashka si aan lacag badan ama kharash badan u bixin biyaha waxayna baqtiyaan si u gali jirtay goobaha lagu iibiyo ama goobaha cunto karinta iyo applicationada lagu iibiyo cuntada si ay mid bilaash u hesho hadaba gabadhani waa 24 jir u dhalatay dalka koonfurta Korea hadaba sidan waxa ka dhaxashay inay kaydiso lacag aad u tiro badan hadaba sidee 4 sano ku urursatay lacag dhan $100,000 hadaba gabadhan waxa la yiraahdaa Ji-un hawshan waxay bilowday iyadoo 19 jir ah ilaa ay gaadhay 24 sano waxayna 2 saacadood oo dhan u lugeyn jirtay goobteeda shaqada waxayna bisha dhan isku filaysin jirtay lacag dhan $7 hadaba sawirka barta ka muuqda waa saca ugu yar dunida waxa uu ku nool yahay dalka Bangladesh waxa uu jiraa ilaa 26 bilood oo qura waxaana loo bixiyay magaciisuna waa Rani sawirkan ku muuqda waa kaydka lagu kaydiyo ragga xaasas kale dumarkooda ayaa kaga sii taga inta ay shopping ama dukaameysiga ku maqan yihiin ay wax iibsanayaan si aan meel kale u qaban ama qof kale aan u raacay sawirka arkaso kani waa hotel ku yaala dalka Sweden waxaan uu ka sameeyay yahay baraf sanad walba la dhisaa maxaa yeelay si wax uu ka sameeyay baraf markaad cad timaado ama xilliga kulaylaha oo dhalaala tani waa xisaabtii ugu dheer dunida ee la xaliyo waxayna qaadatay ilaa 1,500 oo page ama waraqad hadaba waxa ka howlgalay ilaa 100 nin oo xisaabiyahan oo xisaabta yaqaan waxayna ku qaadatay ilaa 3 sano si loo dhameystiro ama loo xaliyo xisaabta inta ayuu muuqaalkeenu ku eegayay fadlan hadan ugu cusub tahay waxaan ka codsanaa inaad subscribe saarto like saarto si asxaabadu gaaro sina share gareyso aad ba saaxiibayaal u mahadsantiin